بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacayga waa maxamed cabdiweli waxaan ahay operation manager astaan waxay la joogay najiib cabdiqaadir oo ka mid ahaa howlwadeenada astaan muddona ka badan 8 sano aan soo wada shaqeynay. najiib bishii hore ayaa dhacday in shaqadii uu astaan u hayay laga joojiyey, arrintaas kadibna ay falcelin badan dhalisay. kadib maanta aynu soo gashay inaan najiib wada kulanno, kadibna aan ka wada hadalno wixii dhacay. najiib waxaan si guud uga wada hadalnay oo aan ka heshiinay, isla markaana aan raaligelin toosa siinay wixii gaf uu tabanayo dhacay. tabashadiisana si fiican aan uga wada hadalnay, si fiicanna waa xalinay. waxaana ku heshiinay in sida ugu fiican oo ay dad soo wada shaqeeyay ku kala tagi karaan aan ku wada kala tagno. sidoo kale waxaan caddeynaynaa ama iyadana raaligelin ka bixinaynaa in maxamed cabdi muude iyadana uu gaf u geystay najiib. taasna raaligelin maadaama mas-uuliyadda aan qaadanayno, raaligelin aan ka bixinaynaa inagoo najiib iyadana raaligelin ka siinay. muude waxa uu tabiyana ay si shaksiya yihiin. marka najiib waxaan rajeynaynaa inaad naga aqbasho oo aad naga raalli ahaato. wixii dadka wada shaqeeyo ayaa qalad kala gaaraa. waa kaa qaatay boos aad oo baasan tahay. waa ku mahadcelinayaa sida quruxda badan waqtiga qaaliga igu hortay iyo sida quruxda badan raaligelinta igu siisay. mar kale iyo mar kalena waa kaa qabaa. carabi ilko isgaaro waana la isgaaraa. waxa ugu qurxoonna waxay tahay maadaama nin rag aad tahay meesha aad ka soo ceshtay mar kasta oo aad raaligelin ka heshid in adigana aad noqotid nin rag ah oo qaato raaligelinta loo geystay oo loogu soo fadhiista halkan. boqolaal jeer waa kaaga qabaa, abaalna waa kaaga hayaa. ta kale waxaa u mahadcelinayaa shacabkii faraha badnaa baraha bulshada khaasatan soomaali weyn meel kastay dunida ka joogto, anigoo kala qaadeynin kala jarjareynin saaxiibadii aragtidooda ila wadaagay fikirkooda igu hiiliyey. ayagana waxaa leeyahay aad oo baasatiin. ugu dambeyn tabashooyinkii waa la xaliyey kadib markii ay iga raaligeliyeen maamulka ugu sareeya astaan. aniguna raaligelintii waxaa noqday nin rag oo ku qanca oo qaata. wax ka wanaagsan ma jirto in aad qaadatid marka wax lagu geysto dulmi ah, in dulmigaas lagaa raaligeliyo lagaaga soo hido adigana aad ku qanacnid. astaanna waxaa leeyahay aad oo mahadsantihiin. had iyo jeer waa idinka qabaa raaligelinta ay ii sameyseen.